ballankii xiriirkeennii goortuu burburay sawma noqon bukaan bookal gacal ku taal kulanti wacan oo wanaagsan idil hantiinba saaxiibayaal kusoo dhawaada barnaamijkeena xiisaa lahaa ee ka dabagalka dhaantooyinka iyo falanqaynta hidaha iyo dhaqanka oo aan kusoo qabanay dhaantada aad maqlaysaan arkaysaan daawanaysaan fiirinaysaan eegaysaan hay'ada kor muuqato ereyada dhaantada waxaa iska leh bandal maseeye laxanku waa cabdulaahi xasan dhuux codkana waa labada fanaan labada lijan ee halkaa baarka ah ee timaha korkooda inoo saaran dhakada ahaa qoodh iyo xerada waa idil shidal bashiir iyo sidoo kale cabdiweli xasan dhuux abwaanka weynaa ee heellada ahaa falanqaynta isku dubaridka lafagurka tafaxtirka erey qabashada ahaa aad iyo aad waa tabiye shaargaraynta light commentiga iyo meel fogaarsiintana waa say wallahi iyo qoodh iyo xero oo halkaa iga soo eegaya dee ha kuwaasaan la hadlaya soo eegaya ha kuwaa wey shaqadiina hay qabsada qoodh iyo xero waad ka seexateen hay aad iyo aad waxayna ku bilaabatay dhaantada ballankii iyo xiriirkeennii goortuu burburay sawma noqon bukaan bookal gacal ku taal say wallahi yow waxay ka hadlaysaa dhaantada si guud haddii aan dee kuu sawiro ekisyo kala lumay oo isjeclahay ekistaadii ama ekiskaagii oo dee haay qaabas kugu laabataanna garan la-ad yihiin waqtiga idin kala geeyay ama caraad ku kala maqan tihiin balse midba midka kale uu jacayl u hayo ayay ka turjumaysaa haay qodhi iyo xerade sababtoo abwaanku wuxuu leeyahay ballankii iyo xiriirkii aan lahayn goortuu burburay dee haay dee aan ku kala yaacnay ku kala dhaqaaqnay sawma noqon bukaan la nool oo la dhibaataysan oo haay la dhul yaallo jacayl iyo xusuus aad iyo aad ama ay ku hadhay bookal gacalo halkaa beerka ah aad sidaa u haysato bookal ka taalla kalgacalka uu leeyahay qoodha iyo xerada aad iyo aad kuwaasay ku bilaabatay idil ayaan isla arkayna jawaabteeda markaad iga baxdo xiise igu bato baalashiyo indhaha soo burqade ilmadu aad iyo aad idin ayruush oo ah ekista haaya qoodh iyo xerada waxay ku jawaabtay oo ekiskeeda u jawaabaysa haay ekis cabdiweli xasan dhuux haay u jawaabaysa waxay ku jawaabtay ama ay tiri markaad iga baxday tagtay ridda ka baxday dee nagu kala dhaqaaji aan isdhaxnayn adiga ismac salaamayna ayuu xiise igu batay deedna baalasha dee waa xirribaha indhaha baalasha indhaha haay soo burqade ilmadu baalashiyo indhaha soo burqade ilmadu haay saasaan iskaga tiraa ilinta haay qoodh iyo xerade ilinta ayaa sidaas kaga bixiya micnaha qofka marka uu kula joogo eed xiriirka leedihiin shaydaan ba ha isku keendiro ama isqabtaanba haay shaydaan ha isku keendiro dad ha isku keendiro bini aadam usasurkhanaas kala haydan galo si kale u kala shakiya isku dhaca kala carooda waxaasoo dhan markaad qofka muddo kala aamusnaataan ayuu kuu soo baxayaa qofka qiimihiisa ama dad kale dee aad mutaysato haay qofka ka duwan oo wajiya kale ad ku arag hadduu qofku jecel lahaa markaasaad dareemaysaa qofka inuu ku jecel lahay qoodh iyo xerade laakiin inta ka horreyso maya waxaa laga qofku kula joogo inaad dhayalsato oo wax culus aadan ka soo qaadin wax walba oo fariin oo uu ku dhaho laakiin markuu kaa tago aad xasuusato o tiraahdo ha alale hadda sida hadda ila yarusha ilooda kale markaad baxday baalashii indhaha haay yaa ilin soo burqan hayaay oo markuu joogo xid burqan waayo adiga ekis markuu noqo burqanayay hayaay waa yahay qoodh iyo xeradi qalbiyaal baahano baylah kala mutiyo maxay laba bukaan isku soo biiriyaan waxay isku soo biirinayaan baan kuu sheegi waxay isku soo biirinayaan dee qofkaad u bugtooda helaysaa haay jacayl buu kugu soo biirinaya soo wax fahanta ma marka qalbiyaal baahi qaba oo dee midba midka kala baahi u qaba oo baylah kala mutay oo dee kala baadiyoobe baylah kala mutay iyo maxay laba bukaan oo mid nin walba goonidiisa dee haay garabka loo hayo oo sariirta saaran isku soo biiriyaan kuba hadduu kan kale u xanuunsan yahay jacayl bay isku soo biirinayaan farxad bay isku soo biirinayaan aad iyo aad wakaa hawshii loo jirinayo o dhan baa imaanaysa loo xanuunsanaa qoodh iyo xeradi waa la kala qooq furaya si kale kuma garatid aad iyo aad
الله حلاوة وكان يسكو صبي يا الله حلاوة وكان يسكو صبي baanta ruuxan ka rabay hadduu yahay basti maxay laba bukaan isku soo biiriyaan baanta ruuxan ka rabay tusaale dhakhtar bada aaday oo daawo u doonatay isagii xanuunsan oo dhardhaarka saaran oo sidaas sariirta u saaran la bubinaya u tagtay hadduu wax caafinayo mu adiga isaga mise caafiya is daaweeyey caafimaadka ilaahay baa bixiyay ka dhigan tahay soo maaha laakiin sabab baa jirto lagu soo marinayo marka wuxuu sabab u noqonayaa qofkaad jeceshahay ood u bugto dartii wuxuu sabab u noqonayaa inuu jiradii ku haysay iyo xiisihii aad u haysay aad ka hamuun goysa hay qoodha iyo xerada hay laba kala baryo kala dhaxo midba dhinac barkimo beerka saaraynu nahay aada weyn laba kala baryay oo kala baaday oo kala warla waxaad yidhi indhahaas arkayno isku ur adaga marka waxay leedahay laba kala baryay oo baryo dhan kala dhaxay oo dee aan is arag waayaba aan is arag oo haddana midba midka kale xiisaan u qabo darteed barkimo beerka saarahay sidaasi beerka u saaro ayaynu nahay barkinta aad u niyoonaysa hay hag baad leedahay qoodha iyo xeradaa waaya نفضنا إيا بيركا بول جعيل كاسا ويستي رد بلدا دينكا رايسا كتيري كارايو إيبوكسيي 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 ماروهم كالايو إيبوكسيي naf wadnaha iyo beerka buul jacayl ka samaystay ood badbaadin karayso yaa ku tiri kaalayo ibogsiiyey naf beerka iyo wadnaha buul uu jacayl ka samaystay halkaa uu maqaaxido ka furtay buul calashaan guri ku dhistay wey guri iyo daaro aad iyo filooyin uu halkaa jacaylka kaga abuurto ka samaystay xaafadaha jacaylka oo haddana badbaadin karayso adiga daawadaada ohoo aad tahay dad garabka qabato garab istaagto dee aad iyo aad u dhawaato aad baxnaanin karayso ama aad badbaadin karayso qabriga aad ka badbaadin karayso jacaylka qoodh iyo xeradi ayaa ku tiri adigoo idil ah kaalay idil hay ibogsi aad iyo aad eraya macaan igu bogsi hay hayaay نبر الله انتان دور بيوتكو فديي بوكا غوري حسوس تاني باري ورايد بوكا غوري حسوس تاني باري barci la ah intaan dhowr bilood kuu fadhiyey buug ka qoray xusuusteennii beri wacnayd taana cidlee fadhiistay dhowr bilood hay barci la ah intaan dhowr bilood kuu fadhiyoon ha ka fikir arrintaasi oo xusuustii iyo jacaylkaagii haa aawadii aan meel fadhiistay buug weyn oo dee halkan aan lagu akrin karin ku qoray xusuusteenni hay waa tii beri wacnayd qoodhi iyo xeradii hadda ma wacna laakiin hadda maadaama aan kala maqannahay hay aad iyo aad ekisyaa isku xir yaa meesha isku gardhiganaya haya laba ekis waaya inta aad baaqi tahay anna aan la ibuddigin baahiyaha cishqiga ma ka wada baxna isku soo duuduubo hadda intaan wax walba oo xumaato oo dhexdeena yaali iyo khilaaf ah dhammayno oo soo gabagabayno hay baahiyaha ina haysta ee khaaska inagu ah ee jacaylka ma ka wada baxnaa ma ka bogsanaa warka hay ugu dheereen hay soo koob cabdiweli oo inaad ugu dheeraatay soo koob aad iyo aad نواب بسيطو خلاف بشر بالو يا ما بربا حناقا قرنبا باين ما بربا حناقا قرنبا وبسيط دي وبسيط بسيطك وحويان واف عربي وواح ير او ضعيف صقيرة او ير ويان وبسيط خلافك او بشر بالوية
آدم ما لويه هاي خلاف وسكي ما كان آدم ما لويه صوبته عرب إلى بدن أي واحد ليري السجود ده مربى إسقنينا ولي عرب ده سكرنا ما كدي هاي iyaga isku dhow xigta ahaan weyn isqanina bariir marka waa basiid oo wax yar weeyaan oo yaani khilaafka bashar baa loo yahay hay dagaalka bini aadam baa loo yahay ee ma birba xanaaqaagani aan baci walaal ekisay waxaan dii adigu maxaa igu samayso aad leedahay dee hay baloojadii hawlaha ka dhacayaan hay qoodhi xirada ma birba حنا قاعن تيان بابا ينقول لي حردي ادوري تاسو كو جاي موقتي markay tiri ma ka wada baxnaa baahiyaha cishqiga markay tiri hay wuxuu kaga jawaabay aan ka wada baxna ma wuxuu mee arintaas la ogeyn arin hoosaas kor labada khilaaf hooso idinka isloogtii baa jira moogta ayaga isloogiyiin marka arintaas la ogeyn walaal de door mar buu la isku day inuu san publica keenin de uu soo moogta marka arintaas la ogeyn inaad ma bir baa tahay de ma samaysid hay khilaafka isaga ama halis iyo xanaaq iska deystay هذا وين هي تاسي حناقه waxay kaga jawaabto tadil una nafyarad beer lo shaabaq jarra ligali fuuq soo baaqdayo caafis baan ku bandhigay kuugu soo baaqdayo caafis baan ku bandhigay nafyaro beer lo shaab boqol jeer raali gelin kuugu soo baaqdayo caafis baan ku bandhigay asaga baashu iska riixay moogta eedu iska dheeriyay macnaha wuxuu leeyahay kala maqnaano oo x kala noqono hawsha ala iska laha ee xanaaqaagan aan baabayn ma bir baa walaalo so ti hay soo macaragoys ila bashar baa loo yahay khilaafkeen markaas iska bariyeeshadeen waxay leedahay naftan yar ee beer lu sheeday hay lahaatayba ayaa dhowr jeer ama boqol jeerba raali gelin ku soo bandhigtay hay oo ku tiri walaalo kugu baaqday macnaha laakiin kugu baaqday hay oo cafis baan ku soo inaad cafiso ayaan ku soo bandhigayba walaalo ana xanaaqsan aniga raali oo boqol jeer ku soo bandhigay labada kisay wallahi qoodi xiralyaal baan nahay soo fadhiyo waa weyn oo dehay kor iyo hoos batima ku leh hay qoodi xiraday labada kis te keen eed saarnaade hay keen eed saarna mid kasto waa isbari yeelay hayoy rafwadnaa iyo beerka buul jacayl ka samaystay ood badba din karaysa ku tidhi kaalayo oo ii bogsiiyey maruhun kaalayo oo ii bogsiiyey nafwadnaha iyo beerka buul jacayl ka samaystay ood badbaadin karaysaa ku tidhi kaalayo ii bogsiiyey subxaanaka yaa cadiim hay halkaasay ku dhammaatay qoodhi iyo xerada dhaantadii mucjisada ahayd een halkan kula faguranay iyo falanqaynteediba tan iyo falanqaynteena iyo kulamadana dambe waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo